يعني اللوبين مر الله مركي ودادته الأشياء ولا أركيس إنسانك وناكسون وعي سوماليا ضبيش عصوك أي وضع وحيري أنا بهذا إثيوبيا هاي ما أقول أنا إنه دولة سوماليا كانت على تأوكس على سندين محاجرة أرنتاس أنك أدنت يدا قومي هو هذا إثيوبيا هاي أي دعوة يساوي خطرته وأذكر كيسا مركه محوكو تعشيه وهذا الكسكن على سواء من البابا تروريسم باكب بالعمل هي طالبان باكت على تي طالبان كوي نمكي أفغانستان هذا كور حقوق اللي قالوا بريء أيها سوماليا الله قد جاء محيل إن بوش بهذا كور كله واقصده مركه وحى صار يسبير صدي مركه وحنا نقضين إثيوبيا نيك ما لحظة وحنا نقضي ننهد سيدو الدولة معنته سوماليا سيدو قربي أي أول حيث يسوون مستعدوا يهينوا خارجيو حيستنم جرجار انتو الدونو iyo waliba bogaadis lagu amaanayo oo haysto laakiin waxay loobayaan Soomaali ilaahay way leedahay isticmaar hadda ka hor bay wax badan la soo diriray kii hadda inuu ognahay aan ka sheekayno in Cabdullah Xasan baa kamid ah kuwii kale oo ka dambeeyay afartameeyay bilawday inkastoo ay Soomaaliya kale ahayn meel kasta oo Afrika ah oo isticmaal adoonsanayay iyo meel kasta oo muxuu Asia ama meeshii kale oo isticmaal adoonsan jiray dabayl la yiraahdo muxuu madax banaani baan doonaynaa yaa ka bilaabatay Soomaaliyana saamigeeda ay ku qaadatay ayadoo waliba bil xaqiiqada Soomaalidu ay ahayd dadka uguna aqoon yar uguna waxaysasho yar haddana midnimo ay mid noqdeen ayaa waxay keentay wax kasta oo la isku dayay especially muxuu Talyaani isku dayay aakhirkii waxay noqotay wax kasta oo la xirxiray wax kasta oo la dadintay wax kasta oo wax la yeelay wax kasta oo la cadaadiyay waxay noqotay tii Ilaahay awal boosadka u xaqiribay dadkii ayagu aan isdulaynin Ilaahay ma duleeyo kuwa ayagu isduleeyana Ilaahay waa duleynaya aayada quraanka way marka dagaalkii laga dagaalamay oo la diiday ayaa wuxuu keenay Soomaali meeshii ay timid oo hadda ilaa ay waqti dhaweyd muxuu ahaa ilaa ay burburkii u dhimaaday anigu waa ila tahay muxuu ahaa in lagu guuleystay dawladnimo la haystay ayaa la soo gaaray adeerna waxaan anigu leeyahay nimanka Muqdisho u dagaalamayo diidaya isticmaar inuu wadankooda qabsado oo dagaal ku soo qabsado waxaan leeyahay bogaadis baan u dirahayaa hambaliyaan u dirahayaa waa ku geesinimo gelinaya inay wadankooda daafacaan shakhsiyan inay daafacaan wax kasta oo laga farabadan yahay wax kasta oo la rabo dadkii Muqdisho xataa jooga in la qaybiyo aan ognahay kulligeed oo dhan ayaga ruuxooda la qaybiyo laakiin intii dadnimadeeda yeelata waligeed ummadoo dhan meel isuma raacdo in yar baa daa'iman guul dhalisa inay noqdaan kuwaas diiday no yiri muxuu ahaa Ethiopia inay Soomaaliya ay adoonsato oo xukunto Ethiopia waligeed waa la ogyahay taariikhda la ogyahay Ethiopia waligeed waxay u hanqal taagaysay Soomaaliya iyo Eritrea inay qabsataa ay wadagaysay waxay sheeganaysaa waxa weeye wadan weyn baan nahay 7 milyan baan nahay bad ma haysano meelaan badda ka galno ma haysano yay sheegatay waligeed to restore the independence of my country waxaan u imid inaan dib u soo hantiyo xorriyadii wadankayga waa Ethiopia wadankaas of my country buu yiri wadankaas which comprises oo uu ka mid yahay oo wadankaas oo ka kooban Eritrea and Banaadir in this case waa Soomaaliya wadankaas oo aan rabo inaan xorriyadiisa arqabto oo ay ka mid yihiin Eritrea iyo Soomaaliya labadaas wadan whose people from now on labada wadan oo dadkoodu maanta laga bilaabo
will live in the shade, under the shade of Ethiopian flag. Labada wadan dadkooda oo maanta laga bilaabo ku noolaan doona mustaqbalka hooska bandiirada calanka Ethiopia. Isla waqtigaas wuxuu la shiray ninkaas generaalka ahaa oo qabtay Eritrea iyo Ethiopia oo Ingiriiska ah ayuu shir la qaatay Haile Selassie. wuxuu ku yiri shirkaas raalligaada meesha ma soo qabsanaya wuxuu ku yiri shirkaas wuxuu ku murmay buu yiri Ethiopia they need for access to sea. Ethiopia waxay aad iyo aad ugu baahan tahay inay u heshaa badda meel inay bad ku yeelataa bad inay yeelataa ku gashay dhalinyaradiina joogta haddii ay suurtoodaan inaad tagtaan dhul sida dhul badan u yeelay aad tagtaan oo aad ka qayb gashaan hadday siyaasad duruuf kasta ay jirto ayaan ka qayb galaynin inaynu iyo waxaynu ognahay aynu muujino